maanta sidii caadada ahayd waxaa qabsoomay shirkii golaha wasiirada ajadayaasha looga hadlo runtii muhiim ahaa waxaa kamid ahayd dabcan sidii caadada ahayd waxaa lagu kala qaatay warbixinta amniga sidoo kale warbixinta xaaladda coronavirus ee dalkeena ayaa wasaaradda caafimaadka laga dhageystay sidoo kalena waxaa la hor keenay golaha wasiirada ajadayaal muhiim ah oo kulligood marxalad waqtiyaysan oo in la dedejiyo u baahan loo baahnaa ayaa la hor keenay oo ay ka mid yihiin heshiiska isafgaradka maalgashiga ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga heshiiska isafgaradka dhaqaalaha ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya iyo ahdiga aasaasidda golaha dawladaha kulaala dawladaha Carabta iyo Afrika ee kulaala badda cas iyo gacanka cadmeed iyo ajadayaal kale oo muhiim ah oo aan dib ka sheegi doono golaha wasiiradu dood dheer kadib qodobadaas oo ay mid u kor istaageen waxay go'aamiyeen number 1 in la khafiifiyo xayiraadii dhinaca coronavirus ee Soomaaliya saarnayd oo 3 bisha August la furo duulimaadyadii dadweynaha internationalka ahaa iyadoo hore loo og yahay inay u furnaayeen kuwa dalka gudihiisa ay hore u furnaayeen dawladda Soomaaliya waxay go'aamisay maanta in la furo duulimaadyadii internationalka ahaa 3 bisha August sidoo kale waxaa la furayaa xayiraadii laga qaaday iskuuladii jaamacadihii ayaa iyagana la furayaa 15 August waxaa si tartiiba mar walba iyadoo taxadar uu jiro oo adduunka uu ka socdo wave-kii labaad xanuunka coronavirus laakiin alxamdulillah Soomaaliya Muqdisho iyo gobolada dhamaantood wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ee heer maamul goboleed laga soo sheegay wanaag iyo inuu hoos u dhacay xaaladda coronavirus waxay dawladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed kula talinaysaa inay taxadirka qabaan oo ka digtoonaadaan wareegga labaad ee xanuunka coronavirus isla markaana si loo nooleeyo dhaqaalihii iyo noloshii bulshada Soomaaliyeed waxaa la go'aamiyay in aad loo khafiifiyo xayiraadda dalka saaran sida aan hore u sheegay golaha wasiiradu dhinaca kale waxay ansixiyeen ahdiga aasaasidda iskaashiga dawladaha Carabta iyo Afrika ee ku hareeraysan badda cas iyo gacanka cadmeed oo wasaaradda arrimaha dibadda keentay waxaa la ansixiyay heshiiska isafgaradka iskaashiga dhaqaalaha ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya waxaa la ansixiyay heshiiska isafgaradka maalgashiga ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga sidoo kale golaha wasiiradu waxay ansixiyeen maanta gudiyo ay ka sugayeen golaha baarlamaanku ama hore loo golaha baarlamaanka u soo maray oo dadkii madaxda u ahaa la ansixiyay kulligoodna wax mudaysan ahaa gudiyada la ansixiyay ama mas'uuliyiinta la ansixiyay waxa kamid ah hay'adda tayadhawrka Soomaaliyeed oo loo sameeyay maareeye iyo maareeye ku xigeen maareeyaha hay'adda tayadhawrka Soomaaliyeed waxa loo magacaabay mudane aadan xasan barre sidoo kalena maareeye ku xigeenka waxa loo magacaabay Aydruus Macalin Xasan hay'addaas oo hadda kadib regulate garayn doonta ama sharciyeyn doonta waxyaalaha dalka soo galaya badqabkooda iyo waxyaalaha dhoofaya ee Soomaaliya ka baxaya tayadooda guud ahaan hay'adda tayadhawrku shaqada ay qabato waa la yaqaana waxaana la dhisay board of directors ama golaha maamulka hay'adda oo ay ku jiraan wasaaradaha ku shaqada leh ay kamid tahay wasaaradda caafimaadka wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda hawlaha guud iyo wasaaradaha kale ayaa loo dhisay maareeye ku xigeenna labada mas'uul ayaa loo magacaabay golaha wasiiradu maanta wuxuu ansixiyay 5 xubnood oo kamid ah golaha adeega garsoorka oo sidaad la socotaan sida loo sugayo ama ay muhiimka u yihiin si Soomaalidu ay u hesho cadaalad golahani gole aad iyo aad u muhiim weeye oo golaha ama garsoorayaasha dalacsiya ganaaxa anshax mariya gole aad iyo aad u muhiim weeye sida dastuurku qorayo wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood oo qaarkoodna ku imaanayaan qaab xafiis qaarkoodna sida maanta golaha wasiirada u magacaabeen ay u magacaabayaan for example dadka qaab xafiis ku imaanaya waxa kamid ah gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga gudoomiyaha hay'adda xuquuqul
insaanka Soomaaliyeed ayaa kamid ah iyagu xafiis ahaan ayay u tegayaan laakiin xubnaha kale ee ama garyaqaanada inay ka yimaadaan bulshada loogu talagalay ayaa golaha wasiiradu maanta magacaabay waxaana kamid ah dadka la magacaabay aqoon-yahan Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil Awxaashi علي محمود حسن شيخ علي وجيس عبد الله علي عثمان حيري عبد الرحمن محمد أحمد عداني iyo إفراح محمود عمر وفي سيفيدودنا halkan ay ku lifaaqan yihiin dad aad iyo aad aqoon-yahaniina oo ku xeel dheer cadaaladda iyo garsoorka ah ayaa 5 xubnood ayaa la magacaabay 4 xubnood ee dhimanna waxay ku imaan doonaan xafiisyadooda sidii aan hadda sheegay guddigana waa maanta golaha wasiiradu way ansixiyeen sidoo kale golaha wasiiradu maanta waxay ansixiyeen guddiga maamulaya ama hay'adda batroolka Soomaaliyeed guddi ka kooban oo si aad la socotaan sharcigiisii golaha wasiiradu hore u ansixiyeen la marsiiyay golaha shacabka la marsiiyay aqalka sare madaxweynaha jamhuuriyadduna dhawaan saxeexay qodob kamidihina uu sheegayay in guddigaas oo muhiim u ah dalka iyo khayraadkiisa sidii looga faa'iideysan lahaa in lagu soo dhiso muddo 6 bilood ah 6 biloodna ay deadline taagan tahay maanta xubnaha loo magacaabay guddiga hay'adda batroolka Soomaaliyeed waxaa kamid ah mudane Ibrahim Ali Hussein oo gudoomiyaha hay'adda loo magacaabay marwo Aisha Usman Ahmed oo gudoomiye ku xigeenka hay'adda loo magacaabay mudane Ibrahim Ahmed Leite xubin mudane Cabdiqaadir Aadan Maxamuud xubin mudane Ibrahim Cabdiqaadir Maxamed xubin mudane Ahmed Xaashi Cabdi xubin mudane Cabdi Xafiid Ali Dirir xubin mudane Mahad Maxamed Sheekh Xasan xubin 8 xubnood weeye hal xubin baa ka dhiman oo laga sugayo inay keento maamul goboleedka Puntland maadaama guddigan qaabka loo dhisay uu yahay in maamul goboleedyaduna xabad keenaan iyo gobolka Banaadir iyo 2 xubnood oo dawladda dhexe keentay xubno saas maadaama uu ka kooban yahay hal xubin ayaa ka dhiman guddigu 9 xubnood weeye laakiin majority-giisa waa la dhisay 9 xubnood ayaa maanta la magacaabay ugu dambeyntii golaha wasiirada maanta kulankoodii waxa la keenay guddigii technicalka ahaa dawladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihii hore mudane Xasan Cali Khayre iyo maamul goboleedyadu ay dhawaan ku go'aamiyeen in la dhiso maamulayay ama talooyinka keenayay qaabka ugu wanaagsan ee doorasho dalka looga qaban karo guddigaas oo maanta ka kooban 16 xubnood waxa la gudbiyo golaha la horkeenay 14 xubnood oo kamid ah oo ay maamul goboleedyada soo gudbiyeen marka laga reebo maamul goboleedka Galmudug oo laga sugayo inay caawa soo gudbiyaan madaxweynaheedii Masar Qorqorna uu joogo laakiin dib u dhac yar uu ku jiray oo uu ballan qaaday inuu soo gudbinayo caawa laakiin 14 xubnood ayaa meesha laga akhriyay oo sida aan sheegay ka yimid maamul goboleedyada dawladda dhexe iyo gobolka Banaadir oo wasiirro ku jiraan iyo wasiirro maamul goboleedyada ka socda iyo xubno kale marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirka golaha wasiirada maanta qodobadaas aadka u badan aadka u muhiimka ayaa lagu soo qaaday oo dhammaantood si kalsoonina golaha wasiiradu u gudbiyeen maadaama ay kulligood ahaayeen ajadayaal taagan sida ka electionka oo kale oo ay khasab ahayd in talaabo hore loo